kulankani ay ku kulmeen maamulka degmada Celafweyn iyo laamaha dawladda ee isuduwayaasha oo ka dhacay xarunta dawladda hoose ee degmada Celafweyn isla markaasina diiradda lagu saaray isbarashada laamaha dawladda ee degmada Celafweyn iyo isku xidhitaanka iyo sidoo kale meel uga soo wada jeeshashada danta degmada Celafweyn ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maayirka cusub ee degmada Celafweyn Cabdiraxiin Aw Yuusuf Axmed ku xigeenkiisa Maxamed Jaamac Liibaan Xinde xildhibaan Yuusuf Maxamed Diiri oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Celafweyn iyo xoghayaha degmada Celafweyn Maxamed Cilmi Harbeeye waxayna ku dheeraadeen qiimaha ay degmada Celafweyn ugu fadhido isu imaanshaha laamaha dawladda degmada Celafweyn waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda laamaha dawladda ee ajiibtay ee sida dhagaa fudud soo ajiibay yeedmadii aan ugu yeedhnay wada tashiga iyo isbarashada aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan kaloo aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee mas'uuliyiinta ay mid walba uga warbixiyay wasaaraddii uu wakiilka ka ahaa iyo hawshii uu qaranka u hayay uga warbixiyay waxqabadkiisa baahiyaha iyo caqabadaha jira sida wanaagsan uga warbixiyayna aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan sidoo kale aan rabaa inaan taabto mudayn maayo muddada kolley وين مش كسر يدورنا لكن خلنا صار لقى دواجي هنا تين كاي حاطه واحد شو حرام سيدا وصوت شيء دوميه كذا نقول واحد مر لي هو حسب مر برقبنا يعني نشوف شيء له أو حمدوري وافرد دينا وحن فمانا وحن كوش غيرنا مسكح دينا وواحد كي ما ضح تعصان رمنا في الباك صار نقول يعني نقولنا سيدا قوي أنا ذو كلام كقاعد إنه وحي تلبحنا تشهدوا ترى لا إسكت عطوا مربى الله كلمه ساسون بيحكوا هاي الكلام لكن هذه نبى مير فريستو أو إذا هذا كان أنا حكومة سنة على وهلي وحنا قوان كرماي وحيل هلا قوم هذه ما أنت يجيهم لا وسارة لا ملهم لا شو لكن قارب بدل ما نعرق بقى أنا نقوم بأنو وح عصبنا وايد حيرونتي ما ملكي هرانا قول حياة كتر السنة دبتوين كتير بيننا حيد وحياة عن كوكر ويني بيحيد جست كلنا قار كم إذا يسدوا يا شاء الله ما الدولة الدقمة Celafweyn أيها كم ركعيش يجنا سيدا ومعمول كانوا هاي كيكو وهذا كل مية إنتني وساردود حدي أنت هراء وحويان عاد بنقوم هالعلني يا مايرك يا ماركويانك يا قولها دجانك شركة سواق بنقابيين وكم أتنتين وواحد كجد وانتين معمول كيورة dadkuna inta la wada shaqeynayo wax la wada qabanayo waxba qabsoma laakiin waxa weeye inta ay hadal tahay iyo maqaar saar dusha waxa wali wax socdaa ma jiraan hadii uu dusha la isaga yimaado la yiraahdo waxaan ku kulmeynaa waxna ayna wada qaban wax wada shaqeynaya ma jiraan insha Allah taala marka koowaad marka waxaan jeclahay inaan warbixin guud ka bixiyo wasaaradda waxbarashada number 1 to wasaaradda waxbarashada waxaan joogay hal sano iyo 3 bilood ama 4 bilood meelaha والدي رسكي أنا وحبرشة يود محوها إسكولة يود حبكي صعوني حالته الدنيا يود مسؤولين توزاردوه بقى وحوي وكل ركسيه رهانتي ما أنت فرحت بينه ولا تحيل هنا هل كان نعمل كحسب وقبض الدجمة Celafweyn السدواشي دي إمام الكيدي السدواشي سيدو ده هو تكنيكال كالدجمة وفرسما يقارن ده maamulka degmada marka caafimaad laga hadlayo caafimaadka waa technicianskii waxbarashadii waa qoladii farsamada gidigoodu waa farsamo yaqaanadii waa niman professional baahida laga rabo degmada oo dhame waxay ku soo baxaysaa isuduwayaasha iyo maamulka oo wada shaqeeya hadaa maanta anagu hadaan nahay dadweynaha anagu kamid ah farxad bay noo noqonaysaa hadaan aragno qoladii maamulka ee technicalka ahayd iyo qoladii administrationka oo wada shaqeynaysa kulankani ay saaka ku yeesheen xarunta maamulka dawladda hoose degmada Celafweyn maamulka cusub ee dhawaan la doortay ay doorteen golaha deegaanka degmada Celafweyn ayaa noqonaya kulankii taariikhda abid la isugu keenay isuduwayaasha ka howlgala guud ahaan degmada Celafweyn iyadoo ay barbilow u noqon doonto habsami u socodka hawlaha shaqeeyo maamulkani ka qaban doono guud ahaan degmada Celafweyn ومحمود عبد البر تلفزيون كعالمي ستار دقمة Celafweyn.